halkani waa laanta afka Soomaaliga ee BBC-da oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-yada qaar iyo barta internet-kan ku leenahay ee bbcsomali.com. galab wanaagsan akhaarta hawada nagala xiriirtay qodobada barnaamijka dunida ee maanta ku maqli doontaana waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo booqasho rasmi ah ugu ambabaxay Kenya sicir barar ba'an oo laga soo sheegayo qaybo ka mid ah koonfurta dalka Soomaaliya. xarakada al-shabaab oo sheegtay in weerar gaadma ay ku dishay ilaa 6 askari oo ka tirsan ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika ee AMISOM. ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu oo sheegay in dagaalka ay kula jiraan ururka Xisbullah ay sii wadi doonaan ilaa nabad buuxda laga helo. dagaalyahanada falaagada Xuutiyiinta oo la sheegay in ay ku sii saqayaan dekada weyn ee Xudayda. qodobadaas iyo qodobo kale ayaa ku maqli doontaan barnaamijkan oo ay si wada jira u soo wada saareen Axmed iyo Cabdullaahi. waxaana idinla socodsiin doonaa anigoo ah Faysal Isxaaq Cabdullaahi. dunida iyo maanta.